محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه آمنة. وأبوه عبد الله مات ومرآه. وأبوه عبد الله مات ومرآه. فقد أتى يتيما وجده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله هو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العلي العظيم. إخواني وأحبابي في الله، أولا إلهي بأمهد إسكال سبحانه وتعالى مجمعا وناق بدن خير كالوهايو مركز كان وين اجتماعاً مسلمين يا أحبابتا يكو كل مايان نسو كل ميي. الله سامحات إسكال سبحانه وتعالى. أولاً إلهي سبحانه وتعالى ومدان وحوفر إني كعب صدان. قرآنك إلهي سبحانه وتعالى مواضع فربضاً ayay ku soo aroortay ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala. intaa waxa loogu soo celcelinaya waxaa weeyaan cabsida ilaahay shay walba aas-aaskeedii weeyaan. qofka markuu ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaala waxaa u suurtagelayo wax kastoo wanaaga inuu la yimaado ayaa u suurtagelaya. cabsida ilaahay waxaa weeye shay walba gundhigiisa weeyaan. taqwa allaahi asaasu kulli shay watibaacu lhawaa sharu kulli xabaa'il. cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaalaa shay walba aas-aaskiisii weeyaan. wax walba oo meel laga soo bilaabo ayay leeyihiin. cabsida ilaahay wax walba gundhigeedii weeyaan. aas-aaska hadduusan qofka ka hagaagsanayn wixii kale uu la yimaado kama marnaanayso inay nawaaqis ay ku jiraan, kama marnaanayso. ilaahayna subxaanahu wa tacaala asagoo u naadinaya dadka iimaanka leh wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. kuwa iimaanka laga helo oo ilaahay rumaysan, nebigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam rumaysan, ilaahay ka yaabo, ilaahay ka cabsada. cabsidiisa dhabta ah ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala. ilaahay waa inaad adeecdo oodan ku caysinin weeyaan.
wuxuu ilaahay ku faro oo qaadato weeyaan cabsida ilaahay oo dhabta ah ilaahay inaad ku mahad celiso ood ku kufrinin weeyaan walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun naftan iyaysan idinka bixin ilaa idigoo islaama maahane marka ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaalaa ayaan isku boorinaynaa dhammaanteen ilaahay inaan ka cabsanno subxaanahu wa tacaalaa qof walboo khayr doonaayo oo ilaahay agtiisa ijaabo iyo wanaag ka gaaraayo waxa ugu horeeya waxaa waaye inuu ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaalaa dadka ilaahay owliyadiisaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay welinimada kasbashadeeda inay yihiin dad ilaahay ka cabsanaya subxaanahu wa tacaalaa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun owliyada ilaahay waxay ahaayeen dad ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaalaa haddana ilaahay ka cabsanaya jalla jalaaluhu wa tacaalaa fii culaah dadkaas magacooda ilaahay waa baaqi yeelay ilaa qiyaamaha ilaahay magacooda waa baaqi yeelay wuxuu ilaahay ku baaqi yeelay waxaa weeyaan ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaalaa waxaan isku boorinaynaa ilaahay inaan ka cabsanno jalla jalaaluhu wa tacaalaa fii culaah oo ilaahay cabsidiisa waa muhim weeyaan meel kasta ood joogto markuu u dardaarmayay saxaabada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabi wuxuu yidhi ittaqillaaha xaydu maa kunta wa atbici sayi'ata alxasana tamxuhaa wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasanin buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam horo ilaahay ka cabsa buu yidhi meel kastood joogto allah ka yaabo ilaahay ka cabsa subxaanahu wa tacaalaa wa atbici sayi'ata alxasana ibni aadam baa la yahay xumaanaa kaa dhacayso dembi baad la imaanaysaa midda ugu yaro qaflaha kaa dhacayso inaad waxaa weeye xasano aad la timaaddo istikfaar raacsiiso ood ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u toobo keento way kaa tirtiraysaa sayi'adii ayada ahayd waxa baabi'inahaya xasanada weeyaan wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan intaanoo culummo ah oo axbaab ah oo jamaaco ah oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku walaaloobay waa in laiskula dhaqmaa weeyaan dabci wanaagsan in laiskula dhaqmo weeyaan xilmi iyo sabar in laiskula dhaqmo weeyaan dadka haddii waxaa weeye qofka dhaqan wanaagsan uu kula dhaqmo oo dulqaad iyo sabar uu kula dhaqmo qofka ilaahay waa gaarsiinayaa maqaamkii iyo darajadii ilaahay waa gaarsiinayaa dadkoo dhanna way jeclaanayaan waxaan isku boorinaynaa marka ugu horeeyo inaan ilaahay ka cabsanno subxaanahu wa tacaalaa taqwada ilaahay culummada waxay dhahaan imtithaalu awaamirillaah waijtinaabu nawaahihi cabsida ilaahay waxaa weeyaan awaamirtii ilaahay uu ku faray ood qaadato subxaanahu wa tacaalaa nawaahidii ilaahay uu kaa reebay oo waxaa weeye aad ka harta weeyaan sayidinaa caliy bnu abi aalib wuxuu yidhi cabsida ilaahay waxaa weeye alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi raxiil buu yidhi cabsida ilaahay waxaa weeyaan alkhawfu min aljaliil allaha jaliilka oo laga yaabo weeyaan oo laga cabsado weeyaan ilaahay cadamaa u sugnaatay weyni baa ilaahay u sugnaaday subxaanahu wa tacaalaa yaclamu qaa'inata alacyun wamaa tukhfi suduur ilaahay allaha og weeye isha wax khayaanto allaha ka warhaayo weeyaan waxa qalbiga kugu dhex jiro oo khayr iyo shar ah alla og weeyaan allah subxaanahu wa tacaalaa qofka ilaahay ka cabsanaayo waxaa weeye waa qof taqi ah weeye oo ilaahay taqwadiisa ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaalaa
الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل عبسد إلهي وحاوية كتابك منزل كاو لغسو دجيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتكو عمل فشويات كتاب كاسين لغو عمل فلال الرضا نبينا وحوا دقن كيسو دن كتابك وهاي ومنا عائشة مركي لويدي رضي الله عنها نبينا نوغا ورن ليراي وحيتري كان القرآن كان خلقه القرآن بيتري نبينا دبعكيسو دن وحوها قرآنك إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحا وكلامك إلهي ويان وونا نلحظ لها يا الدنيا آخرنا إلهي سبحانه وتعالى ونوقع عدي قرآنك إلهي إن لو عمل فلال الربا قفك إلهي قرآنك يسكو عمل فلاي وقف إلهي كعب صناي سبحانه وتعالى والقناعة بالقليل وحير إلهي كسي سبحانه وتعالى وتكو قناعة قادته وحا إلهي وكسي إناد رالي كتها للرضا قفكاسي وقف إلهي كعب صناي سبحانه وتعالى هذه وحي إلهي كسي آذان رالي كوهين قف إلهي كعب صناي نقول ميسي قناعة هو شيء آدو في عنه ويان هذه حتى الدنيا داني عن واحد كويسو وإناد قانع تاي ويان وإناد قانع تاي وإلهي سبحانه وتعالى قسمدي وقوغو ترقلي عاد رالي كتاي ويان إلهي عافمات بكسية إلهي وحكوة فجية دين تبرشد هذا إلهي ركبه كاية لي إلهي سبحانه وتعالى اللحدة هذه اللحاد أيو إلهي في يوبيي نعمه وين بدنا هاي ستا هاي سلين واحد هاي ستا ملا الدنيا دي ما أنت إبرات كتاي هاي سلين ويان قناعة هو شيء آد عجيب بدن نبينا وحقوق المام عليه الصلاة والسلام قفك إلهي سيو كاد عندماني أيو نبي وحقوق المام وعي الرسولك عليه الصلاة والسلام القناعة كنز لا يفنى بي قناعة وكاد عندماني ويان قفك وحكستو أو صامره إناد رالي كنا قطويان وقف إلهي كعب صناي سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم الرحيل عبسيد إلهي وحويان maalinta lagu guurin doono oo magacaada uu baabi'i doono oo magacaada dhan uu ku soo aruuri doono meydkii ma la dhaqay meydkii ma la qaaday meydkii ma lagu tugtay meydkii ma la duugay maalintaas oo diyaar galowdo weeyaan maalinta diyaar galoobideeda ma aha inaa weynaato ma ku xirno marba hadaad mukallaf noqoto oo sharciga aad mukallaf qof baaliq oo caaqil ah aad noqotay waa inaa isticdaadkaas diyaar uu ku ahaado diyuunta lagugu leeyahay intaad awoodi karto inaad iska bixiso madaalimta iyo xuquuqda ibni aadamka inaad iska guddo inaad cibaadada ilaahay aabadsato subxaanahu wa tacaala inaad daacada ilaahay aabadsato inaad diintan ilaahay aad u adeegto ood u khidmayso inaad diinta ilaahay aad jeclaato adigoo diyaar ah marka mawdka uu kugu yimaado qofka waa qof ilaahay ka cabsanaayo subxaanahu wa tacaala marka axbaabi wa ikhwaani fillaah kelimadeenna ugu horrayso waxaan isku boorinaynaa inaa ilaahay ka cabsanno subxaanahu wa tacaala inaa ilaahay ka cabsanno aan isku boorinaynaa midda labaad waxaa weeye bishaan waa dilxijo weeyaan waa shahrullaahi alxaraam weeye bilaha ilaahay xurmeeyey ayay ka mid tahay subxaanahu wa tacaala ina ciddata shuhuuri cinda allaahi 12 shahran fii kitaab illaah yowma khalaqa asamaawaati waalard minhaa 4 xurum ilaahay asaa abuuray 12 bilood 12 bilood buu ilaahay ka yeelay sanadkii baa dhammaanayo bishaani waa bishii 12aad weeyaan waxaa noo bilaaban doona insha allahu tacaala sanad cusubaa noo bilaaban doono shahrulmuxaram 12 bilood ilaahay subxaanahu wa tacaala asigaa abuuray haddana ilaahay wuxuu ka soo dhex saaray 4 bilood oo xurmo leh 4taa bilood oo xurmada leh
saddex bilood way xariiraan bishaan bishii ka horreysay waa siditaal weeyaan ama dilqacda midkaa tiraahaba dilqacda iyo dilxija iyo muxaram saddexdaa bilood waa xariiraan waa bilaha xurmada leh weeyaan qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa bilaha xurmada leh iyo makaanka xurmada leh iyo waqtiga xurmada leh intaba inuu ku dadaalaa laga rabaa inuu intaba ka faa'iidaystaa la rabaa bilaha xurmada leh waa afartaa bilood weeyaan saddexdaa bilood way xariiraan hal bilna waa gooni oo nebiga wuxuu dhahay xadiid rasuulka calayhi salaatu wasalaam والرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان بوي بش اللي يرى رجب مضر وجماد الآخر يا شعبان ودحيصه وحي كم تاي بلا إلهي حرميه سبحانه وتعالى مركا بلاها سو كلينتو وإناد اهتمام عدلاد هايو درين سنتاي قفك مسلم كا والحمد لله كفى إذا يستويان مكان كحرمة له ومسجد كيو كلينتو ويان وحاوي ما ركتي وبيت الله الحرام وكلينتو ويان مسجد كاس مركات قشو وأرلد إلهي ماشا أغو بركة بدن ويان وأرلد إلهي ماشا أغو خير كبدن ويان لحظات كاسي وقتك بيتك إلهي عاد كجرتو وإنا دداشا ويان وقتك ساسو كلا حرمة له يوم الجمعة وكلينتو ليلة الاثنين وكلينتو ليلة الخميس وكلينتو نبي هو سومي جري صلى الله عليه وسلم سنين يا خميس أدبو النبي عليه الصلاة والسلام وجود ذلك جري إن أتكفى يديسته مركا إلهي سبحانه وتعالى وعنا وافجي خير بدنا إلهي نسيه خير بدنا إلهي نسيه سبحانه وتعالى بشان وبلي حرمة لها طبنكي وحاوي بشان ذي الحجة ورقني ويناي وإسلامك ودحدعاي بيت الله الحرام الحج بيت الله الحرام إلهي بيتك سؤال حجيه جل جلاله وتعالى في علاه بشان وحاوي يوم العرفة إن شاء الله تعالى يوم العرفة ومالين آد وفضل بدن ويان وحاسقوني هان وغسو أروري مالين تاقفك إنو صومه صون كيدان اللغو دافايو سنة أنا هذا بشان أي كويكتاي إيه سنة صوص عضو إلهي وقو دافاي سبحانه وتعالى أدونك دنبقيس إلهي وقو دافاي طبعا كان بلوت شرفك إليهين إلهي باقو دارتي سبحانه وتعالى والفجر فجر كان قو دارنايا وصلاة الصبح وصبح والبوض لنا يسو شرف بيلاداي هبينكي بعد عن كجرنا واجا نوبريا يويان فجر كإلهي وقدرتي سبحانه وتعالى وليال 10 تبنا بين عن قدرتي هبين يال أو تبنا أيام قدرتي بير إلهي سبحانه وتعالى طبعا كابين مركان قد حجرنا قفل بو وحال ربا إلهي نان كعبسنا سبحانه وتعالى طبعا كان بيننا عند ذلك والحمد لله طبعا كابين ولبا سقالك مع الموت آدلو دداله ووحا يقفك هدوب إلهي حجك جيو أسيق مركا وحكو مشغول سنياي أعماشي حجك وكو مشغول سنياي لكن غير الحاج إن كان حاج هين وإنه قرآنك إلهي بديا وإنه ذكرك إلهي بديا سبحانه وتعالى وإنه صلق النبي عليه الصلاة والسلام بديا وإنه العبادة طاعته ولا بجبارة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر إلهي إنك وينيو وأيامها فاضل كفى إيديستو وقف إلهي كعب صنعي سبحانه وتعالى مركز سيقوني عان وحانو سبورنينا إنان مالمهاني عن كفى إيديسنا نسكبورنينا وحاويان إن شاء الله تعالى بشا سنين بيدالتي أحد وحشة يا جماعة لا أركن
marka insha Allah ta'ala sida mashaayikhdeena laga soo wariyay marka hadda waxa weeye biri 8 weeyaan oo isniina talaadada weeyaan marka maalinta sagaalaadka yawmal waxa weeye thulutha waa maalintii sagaalaadka weeyaan ina qofku uu ku tiragalo inuu soomo si ilaahay uu dhaafo dambigiisa hore iyo dambigiisa soo socda ilaahay u dhaafo subhanahu wa ta'ala ajiibka oo sanadkan uu leeyahay 12 bilood waxay ku dhamaanaysaa bil xurmale sanadka koobaadna wuxuu ka bilaabanaa bil xurmale fiir ilaahay subhanahu wa ta'ala tafadulkiisa weeyaan bil xurmale ay ku dhamaanaysaa 12 bilood waa bishaan dilxijja weeyaan oo carafa ay dhahaan bishaan hadda waxay noogu dhamaanaysaa waa bil xurmale way sanadkii aan noo dhamaaday kii kalena wuxuu ka bilaabanayaa bisha muharram uu ka bilaabanayaa ayadana waa bil xurmale marka aakhiru sana iyo awwalu sana ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmadiisa wuxuu ka yeelay 2 bilood oo xurmalo ilaahay ka yeelay subhanahu wa ta'ala waxa laga rabaa marka kana inaad ku qatimato a'maal wanaagsan kaasna inaad ku bilaabato a'maal wanaagsan khayrul umuri qawatimuha umur waxa ugu khayr badan aakhirkeeda ugu khayr badan saasa marka laga rabaa ilaahay inaad ku shukriso sanadkii ku dhameystiray subhanahu wa ta'ala kii kalena caafimaad iyo fiyow ilaahay kugu gaarsiiyay inaad Allah ku shukriso subhanahu wa ta'ala marka maalmaha waa maalmo aad u fadli badan xadiis Abdullah ibn Abbas uu warinay nabigeena kaleey salaatu wa salaam wuxuu yiri ma min ayaamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr maalmooyin amal falo oo ilaahay uu ka jecel badan yahay 10 kan maalmood ma jiraan u dhahay rasuulka kaleey salaatu wa salaam a'maasha marka a'maal baaliyiri ya a'maashaas marka intaasoo noocay noqonaysaa a'maal oo dhan baa laga rabaa marka intaad awoodi karto inaad la timaado laga rabaa ma min ayaamin al-amalu salihu yiri amal saaliha ayuu nabiga tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi amal kasto wanaagsan ayaa laga rabaa ilaahayna kabar ilaahay inuu ku waafajiyo subhanahu wa ta'ala maalmahan amal wanaagsan oo la amal falaayo oo ilaahay uu ka jecel badan yahay ma jirto dhaay rasuulka kaleey salaatu wa salaam markaas ay saxaabadu waxay dhaheen walal jihaad ya rasuulallah jihaadka xataa ma ka fadli badan yihiin markaas uu rasuulka walal jihaad fi sabiilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' minhu shay aw kama qala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta jihaad fi sabiilillah maalmahan baa ka fadli badan illa nin naftiisi maalkiisi la baxay oo wuxuu la soo laabtay aan la inuu lagu shiiday oo jihaadka ku dhintay maane marka walaalayaal a'maasha maan la amal falaayo ilaahay agtiisa qiimo weyn ay ka leedahay marka waxaan isku boorinaynaa inaan ka faa'iideysanaan isku boorinaynaa midda saddexaad waxa weeye ijtimaac weyn markaskan saadaadka ka dhacay oo lagu xusaayo sayidina Sulaymaan ziyaradiisii weyneed ayaa haddana dhacays bishii oo bil aad u fadli badana haddana awliyada ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sheekayntooda iyo xasuusidooda iyo xuskooda ayaa haddana waxa weeye ilaahayna waafajiyay subhanahu wa ta'ala awliyada ilaahay baa maqaam siiyay waa dad waxa weeye ilaahay uu doortay weeyaan subhanahu wa ta'ala وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك وحو دون أبورايا وحو دون إلهي وكدورنا سبحانه وتعالى أهل الله وحا ويه إلهي با قرآن كيس كشيغي سبحانه وتعالى فدلقوده والله قرنايا والله رمينايا قفك وإنه قرطاء الرميا ويان إلهي أوليديس قرآن كإلهي كشيغي سبحانه وتعالى intaas oo mawaadica oo aayada ilaahay ugu waramay subhanahu wa ta'ala
كرامات كودن إلهي واكور رمي وكرامات إلهي لي سي سبحانه وتعالى كرامات كودن إلهي واكور رمي قرآن كإلهي واكور رمي سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أحاديثي صور رمي صحيح ذا أيوه هو رمي ويا ننك مركب وحال جربا مكلف كا إنه رميا لجربا أهل الله إنه يجران وإلهي أدورتي سبحانه وتعالى وإلهي أدومنك سيئين يا وإلهي كرامات سيء إنه حسد معها إنه إنكر معها إنه ليد معها أنت صورنا وكهلك سمايا هذه مركزي ظاهر كأوسن وهلك سمنا معناها نقص وقفك قدعاي معايا لقفك إلهي فضل هذه أديك أدليدو أديك أنا وحوي نقص وكسوقلاي قف إلهي ليدي وإلهي دليي هذا أديك عزيزو وهذا الحمد لله كر وقاضو نقص وكسوقلاي إلهي وحو قيمايو إني أمد قيميسال الربا وعير الشيخ ويناشي إبراهيم اللقاني واثبتا للأولياء كرامة ومن نفاها فمددا كلامه أولياء إلهي كرامة ذو الصور كرامة إليه كرامة إلهي سي سبحانه وتعالى هدي نوليهين هدي دنتامبا أهل الله إلهي كرامة إلهي سي سبحانه وتعالى واثبتا للأولياء كرامة أولياء إلهي كرامة ذو الصور ومن نفاها عدي إنكرتو ديدنا فمبدن كلامه هذا الكيس اسكتوره هذا الكيس اسكرد بويري معنا ملها مرك إلهي سبحانه وتعالى فضل جيسا هي نحريس تيسا إلهي وحا كمدا إنه بشي حرمة لهيد إلهي نجارسيه أنه عافمات قبنا هذانا كلهم كاس إياه يعني وحا أوليد إلهي سبحانه وتعالى حسكودي وإلهي نسوق لي أو مرة نقصو قيب لي مركب وحنا نسكب ورنينا ولنمد وواح قفك وكسبنا أيوة نبي نمد أن لك كسبنين نبي نمد وحا وإلهي بحيه سبحانه وتعالى واحد عبادية ضاعات كسبا كرتماها لكن أهل الله قفك وكسبا كرا وقفك إلهي توفيق سيه ووحا وإلهي سبحانه وتعالى كعب صده وودده ذقاده وياه dadka wanaagsan inuu qofka jeclaada la rabaa qofka waxa laga doonayaa dadka suusuuban inuu la suxbiyo ayaa laga rabaa dadka wanaagsan inuu la jiro ayaa laga rabaa hadduu maqan yahay hadduu la joogaba inuu macooda ahaado ayaa laga rabaa qofka waa ka qalin daaranaya anwaartooda iyo madadkooda ayuu ka qalin daaranaya فصار وليا من أولياء الرحمن وحكم من نقنا يا قف إلهي جعلاذي أو إلهي حريري أيون نقنا بعدما أوجع لاذي ذاتك إلهي أوجع لاذي سبحانه وتعالى